السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنال كيني مام شرف وإذا سو دواada meel kastoo dunida daafida ka joogtiin walaaleyga qaaliga ah maasha Allah dambigeen iyo dambi waalidkeen ba Allah dhaafo nin walba muraadku leeyahay Ilaahay u sahlo walaaleyga qaaliga ah maanta waxaan idin hayaa qiso cajaa'ib badan oo ku dhacday gabar saaxiibtay ah gabadhaasoo saddex nin ay soo kala guursatay saddexda nin ilmo ay u kala dhashay asxaabteeda qaaliga ah saddexda nin ilmo saddex cunug u kala dhashay walaaleyga qaaliga ah mid dibadoo jiraa wuu ku biilaa midna maba biilaba biil uma soo diro midna wuu ka dhintay marka asxaabteeda qaaliga ah midkaas oo ka dhintay midkaas ma ogo yarka dibadda jiro biiloo siiyaa aad iyo aadna u maseer badan yahay ayadoo asaga ka baqaysa aysan u sheegin inay guursatay aysan u sheegin inay cunug dhashay walaaleyga qaaliga ah taasoo ku kaliftay daruufta jirto in uu ka goosto biilka yarkaa uu usoo diraayo wiilkaas uu ku biilayo walaaleyga qaaliga ah cabsi ay ka baqayso inuu biilka ka goosto ay ugu sheegi weysay inay nin guursatay oo ninkini ka dhintay wiilna ay dhashay asxaabteeda qaaliga ah sababtoo ah ninkan rajo ka lahay wuxuu rabay inuu ku laabto ayada kumana uusan laaban laakiinse barnaamijkaasaa meel u yaalay intuu maqnaane waxaa la yidhi daahana hortiis dafanaa joogaan lehe intuu asagii maqnaayo uusan barnaamijkaasna uusan keenin ayay heshay okasiyoonkaas oo wiilkaas ilaahay uma calfin wiilkii markay guursatay u yeelatay asagoo uurka cunuga uurka kula jiro caloosha ku jiro aysan dhalinba buu ka geeriyooday ninkii kaleeto kana uma aysan sheegin oo uma sheegi karto waxay isleedahay biilka yaraa kaa goosanayaa kan kalena maba ku biilaba asxaabteeda qaaliga ah waa aabbayaashii ilmahooda aanan biilinba oo waxba usoo dirin marka ayadoo ciyaalkeeda nolosheeda fiirinayso ay ka qarisay hadda ayadoo waxay isleedahay hadduu yimaado markuu yimaado indhihiis un ha ku arko maxay tahay walaalow aniga intii aan maqneed oo kala tagna oo kala maqneen ninkaana la heshiiyey waa aan guursaday cunugaanoona oo iga dhalay hadduu cunugaan iga dhalayna aniga markii si adig aan kuugu sheego waa aan waayey oo sababtoo ah haddii aan ku dhaho waa aan kaa baqay niihow aniga ninaan guursaday cunugaan u dhalay ama ninkii lacagtaada yartaad ku biilaysaa ama isdhaha biilka kaa goostaha isdhahaye saas inaan dhaha maahane ma sheegi kariya tiri mana dhihi kari cunugaan dhalay marka qariskaasna waxaa keenay dhibaatadaas oo isdhahaysa iyadoo isdhahaysa biilkaas oo kaa goosanaya walaaleyga qaaliga ah gabadhaas aad iyo aad ayay u murugaysan tahay ayadoo ka baqayso ballantii meesha u taalay oo asagii inta dib usoo dhacay oo usan imaanin laakiinse mid kale yimid oo guursatay cunugna ee dhashay meesha cunug oo joogo si ay ugu sheegto asxaabteeda ay hadda ka murugaysan tahay marka ani waxaan dhahay walaahi runta inaa iska sheegtay eed oo tiraahda aniyo ninaan guursaday wuuna iga dhintay wiilkaasaana dhalay sababtoo ee sheega runta ah waa wax fiican haddii qofkaas oo u sheegtid hadduu biilka ka goostan israaqada ilaaha haayo afkaan ilaahay iga jeexay uma weynayo wuxuu ku rido walaaleyga qaaliga ah marka gabadha saaxiibtay aad iyo aad ay u murugsan tahay ilaahay waxaan kaga baryayaa in ilaahay muraadkeeda sahlo anaga dhan muraadkeeda oo ilaahay anaga dhan muraadkeena oo sahlo walaaleyga qaaliga ah marka waxaa waaye adduunyada nin joogo maxaa aragti ku laabanaad nin walba wax walba oo arkay adduunyada joogtid adi marka walaaleyga qaaliga ah asxaabteeda qaaliga ah waxaan idiin sheegayaa haddii aad ku cusub tahay janalkeyga subscribe dheh laagna ii saar ii share karey commentna ka bixi asxaabteeda qaaliga ah aad iyo aad aan idiin jeclahay waa idin wada salaamaya meel kasta oo dunida daafeeda ka joogtiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu